وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو وعليكم السلام ويا نجحيو يا شيخ عبد الله حسن حاشي الصبراوي سودو وكا قادني شيخ مريم واحد شري حديث أبو فافاي وبراه بشو لقوفا فيه من والبا لقونا شريين وشيخ يباتوي دعية بش رمضان يوم محرم يوم شعبان يوم إلها سيدا قيرات عدون بش رمضان وكاوي الشيخ مركا دعاني وليها للازمه وأتوبه هاي مركا حديث الشيخ مسوبية هاي الحديث معناها الشيخ حديث كاوينا ويديي walaalkaasi waa xadiis kale kutubta qaarkood ku qornaan jiray laakiin hadda ayaa la soo saaray waxaanad moodaa in xanuunkan jira awgeed dadka la leeyahay guryaha fadhiya dadka qaarkood faafintiisa ay uga faa'iideysteen xadiiskaasi uu dheer yahay macnaha guud uu sheegay haddaan tilmaamo wuxuu tilmaamayaa 15 Ramadaan haddii ay jumco noqoto inay qayla bixi doonto adduunka ka gariirisa oo dad fara badan ay u dhiman doonaan kuwa kalena ay hadalku ka tagi doono haddana qaylo kale ayaa dhici doonta bisha Shawaal marka la gaaro dagaal baa dhici doona ilaha ka sii dambeeyay qabaylka qaybsami doona dagaal iyo fitan iyo dhibaatooyin fara badan iyo halaag baa dunida ka dhici doona saas ayuu tilmaamaya marka xadiiskana saynu ogsoonahay marka diinta islaamka la eego waa war la soo wariyay oo rasuulka kaleey salaatu wasalaam laga soo tabinayo la leeyahay saasuu yiri ama saasuu sameeyay ama waxa saagtiisa lagu sameeyay ama uu ogaado aanu rasuulku kaleey salaatu wasalaam diinin warka marka rasuulka laga soo warinayo soo wararka kale ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri iska hubsada rabbi uu yiri ya alladina amanu jaakum fasiqun binabayn fatabayyanu si ka xoog badan ayay waajib u tahay in la iska hubsado waayo warka rasuulku warka dadka kale la mid maaha marka rasuulka laga soo tabinaya isaga de ahkaam baa lagu dhisayaa shay diintii kamid ayuu noqonaya walaal diinta islaamku waxay kaga duwan tahay diimaha kale iyo mabaadida kale jira oo dhan in xadiisku ama waxa rasuulka laga soo wariyaa si kas hatta hadii uu yahay mid u muuqdo li saalix al-islaam in islaamka salahan ay dani ugu jirto dad ay ku aqbali karaan waxa islaamku uu la gaariyaa diinta islaamku ay la gaar tahay in xadiiska la eegayo soo wariyo soo tabiyay tana dadkaasi la eego mid waliba kan kale ma ka maqlay marka taariikhdooda dib loo raaco saasoo kale la eego dadkan looga qaateen ma yihiin shuruud ay culimada xadiisku waxayna ku sheegaan baa laga eega hadii shuruudda laga waxleeyay warkaasi mid la aqbalaya maaha daciif weeye ama waa mid samaysa oo nin beenaalaaba sanadkiisa ku jira rasuulka inuu ku been abuurtay waxa weeyaan lagu jaribo lagu yaqaano marka xadiidkan hadaynu ku soo dhawaano waa xadiid aan jirin culimaduna waxay tilmaameen inuu yahay xadiid mawduuca mawduucu waa xadiidka samayska weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam war ka sugnaaday aan ahayn marka xadiidkaasi mid jira maaha qofka muslimkaana uma banaana inuu iska faafiyo warar rasuulka kaleey salaatu wasalaam loo tiirinayo oo inay jiraan iyo in kale aanu ogeyn waa inuu isagu baaro hadii awoodeeda iyo aqoonteeda uu leeyahay hadii kalena culimada waa inuu weydiiyo inta aanu dadka u sii sheegin ama aanu sii faafin oo bulshada aanu sii gaarsiin wallahu a'lam.